بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب channelka ku xiran waa mar kale walaashin saaray muuqaal cusub waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan waxaa idin wadaa muuqaalkaas quruxda badan qaabkaas ugu dambeyn kusoo baxay waa rooti sidaa wada arkaysaan rooti zaytuun ayaa la dhahaa maasha Allah tabaarakallah qaabkaas ayuu ugu dambeyn kusoo baxay axbaabteeda waxaan rajeynaynaa ka wada heli doontaan adna ka faa'iidi doontaan cidii daneynaysa insha Allah taala qaabkaasna ayuu ugu dambeyn kusoo baxay waxyaabihii aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay ka faa'iideysi wanaagsan saxaabi halkan waxaa ku haystaa 2 xabo oo ukun ah 2 koob oo bur ah subagan ayaan isticmaalayaa oo subag aad u fiican maasha Allah waxaan kaloo insha Allah taala ku soo darayaa sida wada arkaysaan 2 qaando sonkor qiyaastii ayaan ku soo daray burkii baaquliga iigu jiray waxaan kaloo ku soo darayaa 1 qaando oo fixisa ama leebito ama isti qof walba siduu u yaqaano waxaan kaloo ku soo darayaa wax yar oo cusbo sida wada arkaysaan intaan ayaan isku dhex qasayaa wax yar insha Allah wixii kaloo aan ku soo daray gadaal ayaan ku uga soo dari doonaa biidnillah xabaabtay sida wada arkaysaan burkii iyo cusbadii sonkortii iyo fixisadii ayaan isku soo labayaa markaan xogaa isku dhex qasay waxaan ku soo daray ukuntii baaquliga igu diyaarsaneed waxaan kaloo ku soo darayaa 2 qaando oo subag ah subag alla subaga haystid waa isticmaali kartaa laakiin kan aad ayuu u macaan yahay maasha Allah tabaarakallah wuuna carfayaa 2 qaando ayaan ka isticmaali doonaa insha Allah axbaabteeda rootigan inaba caadi ah waa idinkana soo tijaabiya waad ka wada heli doontaan maxaa yeelay rooti aad iyo aad waxyaabaha uu ka kooban yahay faa'iido u leeyahay waa hadan sida wada arkaysaan galaas caano qandaca caanaha mood isticmaali doona insha Allah haaf kamid ayaan isticmaali doonaa sidaas wacan ila socda axbaabteeda intaas dila isku qaswa dareemi kartaa wax meesha ka soo baxaya maasha Allah tabaarakallah hadan waa isku dhex qasaa sida wada arkaysaan waxaa moodaa inuu wax yar inuu jilcan yahay aan u maleysaa bur yar ayaan ku soo darayaa insha Allah sida wada arkaysaan bur yar ayaan ku soo daray si fiican ayaan iskugu soo xashaa insha Allah qiyaasta kugu filan mar walba adiga taqaanid asxaabteyda soo qasay waxa u dhiman laakiin si fiican u sii xash insha Allah baquli waan ka bixinayaa dhulka ayaan la tagaa meeshaas ayaan ku xashaa si fiican biidnillah arjeenana si wacan ila socotaan axbaabteyda cajiin waa qasitaanka iyo waxyaabaha uu ka kooban yahay intaas ayaa muhiim ah labadaas dii ay ka toosto oo toos cajiinkaaga sidaas si wacan ila socdo insha Allah qaabkaas ayaan ku soo wadaa insha Allah markaan si fiican isku soo dhaxgeliyo ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah haddii aad nagu cusub tahay soo dhawo please subscribe haddii aad hore inoola joogto oo ka hesho muuqaalka like garee asxaabtaada iyo heladaada u sii share garee wixii fikradana xagga commentiska igu soo qora fikradihiin waa ii muhiim axbaabteyda walina waxaan wadaa xashitaankii cajiinka sidaa wada arkaysaan si fiican ayaan isku soo dhexgelinaya insha Allah marka uu si fiican cajiinku ugu qasmo qurux ayuu kugu soo baxayaa insha Allah hadan waxaan ku soo ridayaa baaquliga sida wada arkaysaan wax yar subaga ayaan ku soo shushubay si uusan iga qabsanin baaquliga cajiinka ayaan ku soo riday waan soo daboolayaa ilaa uu iga soo qamiiro insha Allah markii uu noo soo qamiiro kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah sida wada arkaysaan wuu soo qamiiray wuu soo fiixay naqaska ayaan ka soo saaray hadan waan jarjarayaa sida wada arkaysaan qiyaas roon ayaan u jaranayaa insha Allah waan soo kuuskuusay saxanka ayaan ku soo diyaarsaday maasha Allah hadan waxaan bilaabayaa inaan soo duubo rooti dhowr nooc ah oo qurux badan waad ka wada heli doontaan insha Allah indhihiina ayaa idiin macalin axbaabteyda soo dhawaada waxba idinka hor dhicin insha Allah
xabadda u horeysa qaabkaas ayaan u duubayaa sidaa wada arkaysaan. haddana waxaan wadaa xabaddii labaad. rooti qurux badan oo kala nooc oo nafaqo leh ayaan soo sameyn doonaa insha allah. xabadda koowaad qaabkaas ayay kusoo baxday. haddana waxaa idin tusinayaa oo aan wadaa xabaddii labaad insha allah. dhowr nooc oo kala duwan ayaan ka dhigayaa oo aad u qurux badan insha allahu tacaala. sidaa wada arkaysaan qaabkaas ayaan u duubayaa s y sara waxay ka u taagan yahay xarafkaas s ayaan ka dhigay xabadda labaad. axbaabteeda sidaa wada arkaysaan maasha allah tabaaraka allah. qaybtan kalena qayb kale waaye, si fiican ila socda insha allah. waan soo kuuskuusaya cajiinka sidaa wada arkaysaan. kuus ayaan hadda dhigay ilaa dhowr kuus oo isku dhagan ayaan ka dhigi doonaa insha allah. qaabkaas ayaan kusoo wadayaa insha allah. afar xabo ayaan isgarab dhigay axbaabtay sidaa wada arkaysaan. xabadda shanaadna kor ayaan kasoo saaray. midkan qaabkaas ayuu ku dhan yahay isne. nooc kale ayaan haddana soo sameynaya insha allah. waa dhowr nooc oo aad u kala duwan. la socda insha allah. nooca keeshid ayaa sameysan kartaa, wax dhibi ma lahan. xabaddan xabaddii kow aan sameynayay xoogaa yara shabahda wayna ka duwan tahay. kii shanaad ayaan haddana soo sameynayaa. waa nooc kale asna sidaan rajeynayo. qaabkaas ayaan kusoo wadaa axbaabteeda. waxaan rajeynayaa inaad si wacan ila socotaan insha allah. qaybtaasna waa qayb kale axbaabteeda sidaa wada arkaysaan. mid lamida ma lahan. xabaddan labada dhinac ayaan kasoo duway, kadib waan isdhaafinayaa sidii x camal insha allah. qaab alla qaabkii ku cajibiyay ayaa ka dhigan kartaa, wax dhibi ma lahan. qaybtan waa nooc kale sidaa wada arkaysaan. qaabkaas ayaan kusoo wadayaa. midka kale ayuu ka daran yahay, wuuna ka duwan yahay maasha allah. waxaan rajeynayaa si wacan ila socotaan insha allah axbaabteyda. midkan mid qaab kale ayaan kasoo dhigi doonaa insha allah markaan si fiican usoo fidiyo. qaybta kor ayaan ka duubi doonaa insha allah. qaybta hore markii aan saas iskugu soo salooca camal, qaybta gadaalna roundi camal aan usoo duubaa insha allah. sidaas ayuu diyaar ku yahay kanne maasha allah. kanna sidii oo kale aan usoo fidinayaa. gacanteedaan isticmaalaya sidaa wada arkaysaan. markaan si fiican usoo dhuubo kadib ayaa wixii aa ka dhigaya isna arki doontaan insha allah.
midkaan qaabkaas ayaan usoo duubaya sidaa wada arkaysaan labada gees ayaan ka laaba kadib waa isdhaaf ayaan camal ayaan u xiraya kadib gadaal ayaan kasoo dhex bixinaya sidaa wada arkaysaan qaabkaas ayuu diyaar ku yaasne waa naqshad kale sidoo kale mid kale ayaan soo fidiyay dhedheer camal usoo duubay kadib mid labadan xab hal mar ayaan isku hagaajin doonaa insha Allah cajiinka dee qasidiisa hagaagi leen ama uu adag yahay uu ku dhibi lahaa xoogaa laakiin hadda maasha Allah soft asigana wax kala harayo ma lahan isku dheelitiraya maasha Allah labadan marka waxaan sameynayaa waa ila wada arki doontaan waxaan ka sameynaya insha Allah labadan hal mar ayaan isla isticmaalaya insha Allah waa isdul saar axbaabtay sidaa wada arkaysaan qaabkaas ayaan isku dhex marinayaa qaybta dambana tidac camal ayaan ka dhigayaa madaxana wuu ka duwan yahay sidaa wada arkaysaan qaybtana saas ayay ku dhantahay axbaabteeda maasha Allah tabaarakallah indhiina ayaa idin macalina haddana waxaan sameynayaa zaytuunkii ayaan dhex gelgelinaya insha Allah mirihiisa ayaan ku safayaa insha Allah qaabkaas ayaan usoo wadaya sidaa wada arkaysaan burkii cajiinkii waan soo diyaariyey saxankii uu foornada ku aadi lahaa ayaan soo saaray saxanka saliid ayaan soo maray bur yar ayaan kusoo daadiyey sidaa wada arkaysaan haddana waxaan ku safayaa amaan dul saarayaa zaytuunkii walaaba inaba caadiyan ayuu noqonaya insha Allah markii aan kusoo dhameeyo waan soo daboolaa insha Allah markii xoogaa yar noo soo kaco ama noo soo khamiiro ayaa waxaan soo marinaa insha Allah ukun yar ayaan kor ka soo marin doonaa insha Allah qaabkaas ayaan ugu soo dhameeyay zaytuunkii axbaabteeda sidaa wada arkaysaan sidaa wada arkaysaan laba xabo ukun ayaan iska soo garaacaya weliba qaybta yolkiga ah oo jaalaha oo kaliya qaybtii kale waan kasoo shubay haddana waxaan bilaabay inaan korka kasoo marmariyo sidaa wada arkaysaan qaandada waa isticmaali kartaa haddii aad rabtid brush waa isticmaali kartaa wax alle wixii kuu fudud ayaa isticmaali kartaa markii aan kusoo dhameeyo oo kulli dhammaan soo marmariyo ayaan isku soo laabanayna insha Allah qaabkaas ayaan ugu soo dhameeyay axbaabteeda ukuntii waa soo mariyay burka waa arkaysaan siduu isku bedelay haddana foornada ayaan gelinaa insha Allah foornada ayaan soo geliyay axbaabteeda sidaa wada arkaysaan markii aan kasoo saaro ayaan isku soo laabanayna insha Allah qaabkaas ayuu ku dhan yahay axbaabteyda indhahayna ayaa idin macalina kor iyo hoosaas ugu gaduutay dhexdana waa kaas maasha Allah tabaarakallah ka hadal malahan maraq ma u baahna galaas caana hadaa ku qabato ama koob shaahi ah cunto ayaa ku dhan maasha Allah tabaarakallah weelkaas ayaan ku soo shubtay sidaa wada arkaysaan qurux testana idinkana soo tijaabiya waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan jazaakumullahu khayra assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh